fiirso oo ka faa'iideyso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midaan wax fogeynin waa midaan wax ficlayn waa falaaqayntii fahankeena farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare fariiso oo fiirso faafahinada faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen fiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal ifiirsadayaal ijeedayaal idaymodayaal idhehdayaal idhugtayaal vardayaal lugyaal shufeeyayaal aabbayaal hooyayaal aboowayaal abbaayayaal abtiyaal aayayaal adeeryaal eedayaal awoowayaal amooradiisa ayeeyayaal jiiraanyaal mas-uuliyiinyaal ilaa muluqyaal madaxweynayaal maxaan ku leeyahay gudoomiye baarlamaan ra-iisul wasaare maxaan ku leeyahay xildhibaanyaal culamaa udiinyaal maclimiin dugsileeyaal kitaabtoodyaal maclimiin iskoolleeyaal ardaydoodyaal ganacsatayaal asxaabyaal dalka joogayaal dibadda joogayaal waa ku farxaa anfoolalkiine iyo fahmadiiniye formada ood u fadhisiine waktigan oo kala waani soo fadhiisahaa waktigan oo kala waani soo fadhiisahaa in sha allahu tacaala faaliyahaa soo farjihaa fiirsadayaal very nice anfarehe wixii bafulo haye soo fasaxaa haye waa soo fasaxaa dharga maanta dharga qodobka ugu horeeyo ama qodobka koowaad ama qorobka koowaad xabsiyada dalka mar walba dad in lagu xiro aloo dhisi balse abba loo dhisee waxaa dhacday in dad badan oo cadaalad daro tirsanaya ama dad badan oo cadaalad daro iskaga xirnaay dowladihii dalka soo marayna fursad uma helin in dadkaas la dhexgalo la baaro waxay ku xiran yihiin meeqaa xiran oo kor lay aheyd waxaa xiran 7,777 qof haye isbuuc kale meeqaa kusoo darsantay halaas iyo halaas isbuuc kale meeqaa kusoo darsantay halaas iyo halaas war maxaa lagu xiran yahay wax dhahay malabe war maxaa lagu xiran yahay hebel maxaas ku xiran yahay hebel maxaas ku xiran yahay war hebel see waaye abo laakiin dowladda farmaajo dowladda madaxweyne farmaajo abo guddi xaqiiqa raadinay u dirtay waa daba gashay dowladda farmaajo kuwii hore camal ma naqanin maxaa lagu xiran yahay yaa timid hebel maxaad ku xiran yahay hebel kiiskiisa maxaa waaye hebel kiiskiis maxaa waaye hebel kiiskiis maxaa waaye abbo waxaa soo baxay nin dhalinyaro ah oo $30 ilaa $35 lagu lahaay oo 5 sano lagu xukumay 5 sano $30 waayde 5 sano maalintiina qadadiisa quraacdiisa cashadiisa $3 waay 5 sano $3 ku dhifo maalintii waxa lagu lahaay iyo waxa qarashka ka baxay yaa badan dadkaas camala iska xirnaayeen dadaa waxay u xirnaayeen waa ikuuri dad waxay u xirnaayeen waa igu kor indhisi qofba waxa uu iskaga xirnay eegayaal qodobka lamaad ama qorobka lamaad horta magaalada jigjiga waa taqaaniin صغير إيه كبير وكسينا ما هنا مقالة جيجيجا
sooy u nuureyso washington d c idaa ka nuure sii u quruxdahay maa sha allah nuurkeedaa baxaa waa aragteena umaleha chicago jigjigaa ka fiican wallahi chicago johannesburg jigjigaa ka fiican sababtoo ah chicago waa laga nuur badan yahay haddana dad soomaaliyeedaa jooga oo afkaaga hooyo ku hadlaayo maa sha allah laakiin chicago iyo johannesburg dad afkaaga hooyo ku hadlaayo ma joogaan bilicsimadeeda waa aragteen quruxdeeda waa aragteen kala dambeynteeda waa aragteen nabaddeeda waa aragteen isku xirnaanteeda waa aragteen shicib ilaa madaxweyne hal qafaa loo maleha hal qaf madaxweyne cabdi haddiis joogsado halaha kale gadaashiisa ay maraayaan ad waxaa leedahay kaali jigjiga dhan madaxweynaha le maa ku nool cabdile maa ku nool samigey saan haddiis dhaho abow farararararararara dowladdii mas-uuliyiintii hooyooyinkii ardaydii shicibkii culamaa u diinkii qodobka saddexaad qodobka hee saddexaad dhalinyarada xaafadda buulo hoose ee degmada warta nabadda waxay sameeyeen isku soo bax ku aadan isbariisi iska warqab diriseenta sideed waa leesku dugaashtaa diriskiis darajeeyo waa loo dembi dhaafaa waa dhalinyaro isxilqaantay waa dhalinyaro iyo odayaal indheer garad culamaa uddiin dhakhaatiir wixiiba degan buulo hoose ayagana hal far waaye hal far hal xaafad waaye buulo hoosaa la dhahaa wallaahi maa sha allah waa dad iska warqabo kooda gaajeysan iyo kooda dhargan iyo kooda jiran iyo kooda caafimaadka qabo kooda dheer kooda gaawan kooda xoosan kooda caataha eh waa la iska warqabaa abo maa sha allah qodobka afaraad ama qorobka afaraad munaasabadihii xuriyadda ayaa wada qabsoomay sida 26 juun iyo 1 luulyo oo xali ahaatee abba ahaatee waxaa la arkay wax weligiis la soo arkin 26 juun buller wax la dhahayaa la ridi heer xamarweyna ugu oreeyaan unanka boorsadaan waa xerxerani waxaan dhahani haddana bilaaya soo socota cawada haddana cawa waaye kuwii horaaba fiicnaayeen iri aldhahay dagaalkii 4 biloodkaab iska roonay maalnaasahay kan cawa waaye antee taweynaa dhagihiya waxaa soo barti madaafiic juu hoowiye juu kaare juu waxa afka xataa inaan kusoo naqa ma fiicna waa la nanaxay waa la jareey dabaal degba yaa umalee hooyaabe waa la isku bilaawi dabaal jukeesaa loo maleeyahay dabaal jukees gadaalihii waxaa la ogaaday inaa buleer as yahay waa la ilbaxayaa abo waa la ilbaxayaa laakiin xali dadka badi waa la qabsadeen buleerka markau dhacano aad iyo aad a loogu sacbinaayey daawadayaal faaliyaha qaranka qodobka shanaad waa sheekadii ilaahay iskumaan ha naga dhigo meel walbo aan joogno ilaahow iskumaan naga yeel yaa rabbi ilaahow ummadda nabi maxamed aan nahay waa sheekadii kalamaan qodobka shanaad lixaadna waa wargeesyada iyo waxay qoraan hee oo aalaabana warka shaata meehaaney noowa a akriyo ee boogey maki xaaji banaa afka ceshami dheesino dir mar labaad aadin akriyo qodobadii ugu fuursanayay qodobka koowaad xabsiyada dalka mar walba dad badanaa lagu xeri jiri waa buux dhaafay madaxweynayaashii ama maamuladii horena soo maray ama dowladihii horena soo mareen
wax control ee ma sameeyeen meeqa xiran oo kaliya ahayd bishaan waxaa xiran intaas meeqa ku soo korortay bishii dambe alaas meeqa intaas sii haya laakiin dowladda farmaajo guddi xaqiiqa raadin ayay dirtay guddi xaqiiqa raadin meeshaan liska buuxo oo balaga soo baxoonin oo lagu bado hooyo oo lagu buubuuro oo lagu balaaro hooyo oo lagu meeshaan liska galooye le oo baxo bajirin dowladda farmaajo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Maxamed bin Cabdullaahi bin Maxamed waa fikiray wuxuu go'aan ku gaaray inuu guddi xaqiiqa raadin u diro xabsiga waxaa la soo ogaaday igaar dhalinyaro oo $30 loo xiri abba loo xiree canaan le ma laheeno 5 sano beerka loo geliy 5 sano ganfuurka loo geliy ganfuurka 5 sano $30 loo xirnay abo okay maalintii qadadiis quraacdiis cashadiis $3 waaye ku dhiftabe 5 sano oo maalintii $3 meeqa waaye lacagta loo xiri in lacagta as isticmaali yaa badan maxaa keeni marka control la'aanta keentay usaa khasaare qawaa maskiinka 30 les cuni hallo hoos xabsiga ku cuni fiiriyabe dadaa waxay iskaga xirnaayeen waa igu hindhisi adshow koo waxaa soo xiran yahay waa liigu joogsadi koo waxaa soo xiran yahay waa isoo kuuri wax walbo haddii la dabagalo wax walbo haddii xaqiiqdeeda la raadiyo wax walbo haddii la rabo in la ogaado waa la ogaan karaa hadda dadkii waa la kala bixiyooyaa heer $30 iyo heer waa ikuuri iyo heer waa idayi iyo 130 iyo wamaa ziyaada as madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed as cafis u fidiyey nasiibkooda u naqdi intii ilaahay u calfi waa soo baxday haddana weliba haddana xaqiiqa raadinaa lagu jiraa إن شاء الله تيم كدنبنا يا وصباحيان بإذن الله كريم كوان كلي جودا ملقو أكانايو وركاسي وها إنه هايو أو نصو أو كسو جوك سدي أو هي أو سو جار بوتي يا أو هي جيف إيه جوك كسو حفيدي وأبوكر جا جومو أبوكر جا جومو أو جل شيء جماوة جاجومو جل شيء جماوة جاجومو أو يشوف أفقوي على أروستو يشوف أفقوي على أروس تراران دان داران دان كسودوا وابتي أبوكر جاجومو xabsiyada Soomaaliya dadkiya buux dhaafsay way circiirayaan haddana subax walba ciidamada waxay sii wadaan dad lagu sheegay inay yihiin dimbiilayaal dadkaas oo buux dhaafay oo isdul seexanaya dadkaasi isdul seexday waxa laga yaabaa inay yihiin dad dulmanayaal ah waxyaabaha lagu soo eedeeyay aysan bageysan falalkaasi haddana hasi ahaatee wax daryeel ma heli jirin dadkaasi waxay ku baaba'sanaayeen xabsiga dhexdiis qaar ayaa bukaan iska ahaa qaar ayaa ku waashtay qaar ayaa ilaa haddeer aanan garan wax ay ku xirnaayeen dadkaasi maxabiista waxaa u sii dheer qaarkoodii codkoodii ma gaara ama dhabaqoodii meel fog way dad u dooda ma haystaan qaar waxaa jira dad oo iska liito dad masaakiima ayaa halkaas la isugu geeyay markii hore waxaad moodaa dadkii lagu xiri jiray maxaad waryaa ii soo fiirisay xageed ka timid waryaa maanaad igu keentay haddeer dadkii halkii way buux dhaafiyeen dawladihii hore dalka soo maray xabsiga way booqan jireen balse taxadka ama hoose ma ogaan jirin maxabiiska ama muwaadinka xiran wax uu ku xiran yahay biyaha sare kaliya ay ka cabi jirto salka hoose ma tegi jiran hasi ahaatee dawladda maanta ka jirta dalka Soomaaliya ayaa xam badan dhagaheedii ku soo dhacay ay maqlayaan xabsiga dadka ku jira inay dulman yihiin qaarkoodii aan dhabaaqoodii meel sare gaaray sidaan horeyba u sheegnay siday u socotay dawladdii Soomaaliya xanta halkii ay ka maqashay ayay istaagtay oo soo aragtay kadib dawladdii halkaasi markay booqatay qaar aan weligoodii yaa ku dhalay xageed u socotaa bariisa lagu keenay kaale cidaada joogtaan weligood baladhin dooro ma qabtaa deen ma lagu leey ay waxay dhaheen adiga maxaa ku xirantahay bal sheeg hasiye seexantii markay dib u dhageysatay iyo xaqiiqdii dhabta ay heshay
waxay ogaatay dadkaani inay dulman yihiin dowladda soomaaliya boqolaal qofood aanan weligoodii ama aan ku fikirayn inay iftiinka dib u arkayaan ayay dibadda u saartay oo oodiyay ka qaatay oo xaqiya halkaasi ka dilaacay waxaa ka mid ahaa 2 wiil oo dhalinyaro halkaasi ku jirta oo la yaabnay arrimahoodii mid wuxuu ku xirnaa lacag gaaraysa $35 muddo gaaraysa 5 sano ayuu ku xirnaa xabsiga dhexdiisa ninkaasi maalintii wuxuu cuni jiray $3 5 sano $3 markuu cuno waxay noqonaysaa $35 ku gud kumaan dollar aniga waxa laga soo qabtay xaafadda hodan meeqa lacag ku xirnaa $915 meeqa sano xirnaa 2 sano lagu xukumay maxkamadda waxay ku xukuntay 2 sano xariga iyo $915 labadii sano waan dhameystay 3 sano oo dheeraad aan xirnaa oo lacagta awgeedan u joogay lacagta la igu weeday ma qaadan aniga lacag way jirtaa laakiin lacagta sinta isla aan ma qaadan mise lacagta $70 marka $70 $915 dhiga kadibna 2 sano lagu xukumay guddiga xaqiiqa raadista waxay wataan toosh oo kun karbuuna ku jirta abba laakiin aabe qaara jira wali xabsiyada dhex jiifa aan karbuunada tooshka ama ifkiisa wali ku aadin ilaaho ugu toosi guddi xaqiiqa raadis ayaa la soo saaray oo raadinaya nin dulman oo kaliya oo muwaadin Soomaaliyeed mar ay hadlaayeen guddiga xaqiiqa raadinta waxay dhan iyagoo tooshkooda wataan sida tan haddii aan xogaa niga taabto dadka lacagta loo haysto waxaa ka mid ah qof la soo xiray bishii 9aad ee sanadkii hore ilaa maantana xiran ugu leeyahay lacag ku dhow $30 qiyaas ahaan waxaa kaloo jira muwaadin Soomaaliyeed runtii u xiran muddo ka badan 5 sano lacag dhan $360 marka arrimahan waxay muujinaysaa in loo baahan in lagu waxay isbedel runtii iyo hagaajin horta guddiga xaqiiqa raadista waa maxsan yihiin kan gudaha ku jiro xabsiga ku jira hadduu cadaaladiisa si sax u helo kan banaanka joogo iftiinqasna raaxaysaayo cadaaladiisa hele bas ulka waa qeyrna marka roobaa banoo da'ay awkar jaajumow faaliyaa qaranka University TV muqdisho xabsiga dhexe waxbaa matar ma joogsan yeegayaal qodobka hee lamaad jigjiga haddaa maqashiin jigjiga ما شاء الله واتقانين واركتين واتكتين خاركينا ها انا لا ولي تجين انا ولي تجين ان شاء الله لكن واتقا يقرا يسو خنصدي يسو حري اني ها 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 حاجي مدوب اي خنصدي اني لكن ان شاء الله هدي سنتي او الهي خر واتقا ان جيجيغا واتقانين وميل ادي اد وقروح بدن وميل ادي اد نور كذا وبحايو ومقالو اد بالعسيمديدا لوغو ددالي حق الدسمو حق النلل اسكارسين بيو ما شاء الله انتاس waxaa lagu heli kala dambeyn احترام اسجعل اسفهن لكن جيجيغا سي هاجرتي جيجيغا مقدي واددخرنات ظروفا كموقدي لاميالك ولا بحلوي وديغا كبحاي بيا هدي لروا على سو كيلومتر على لغويهاي gaadiidkooda ugu quruxda badan waxaas ahay faras oo la tumayo weliba dhabac waa la tumay ilaa afgoy laga gaarsiiyey camal ileen wax kaloo nuuxsooy ma arkooyo faraskii hadis baabuur arka camal waa roora hadis tariin arka camal waa roora hadis diyaara korka maqli lahay waa roori lahay naftirkiisa waa ogyahay faraska meesha as joogas ogyahay meel lagu kala guuri haddii tahay faras ma socohayo tuna sheegay feeraa ka dhow laakiin jigjiga dadka waxay isleeyihiin jigjigadan hadda saan u qurux badan jigjigadan hadda saan oo macnaa nuurkeeda u baxooyo madaxweyne cabdi cumar juhdi iyo dadaal dheeraad oo asiga iyo dowladdiisa iyo shacabkiisa yah ay geliyeen waaye heer jigjiga ilaa madaxweynahooda waa aabbo iyo awlaadiisa waaye macnaha siday iskaga dambeeyaan aan sheegaa ixtiraamkaan sheegaa say isku qiimeeyaan say isku darajeeyaan say madaxweynahooda ugu dambeeyaan
horta jigjigadii horena la fiiriya wax yar calooshaan iga horiyaa daawasha wacan warama borto cawo iyo maalin ma kala aho jigjigada hadda aa arkoosiin iyo tan hadda niila tusi ka waramaba fiiriyaba maxaa lis dhahaa marka 20 sana lagu dhisi ama 30 sana lagu dhisi ma lis dhahaayo abadan abadan haddana tii quruxda badneed aan nii soo wadaa daawasho wacan بري ساعة ما قارن كرو كل هذا سماعته سحلكي إنك هاري سؤال ويتاغني ساك محان كسوغنا هاي ساك وحان كسوغنا هاي سؤال با وما بانو وابري ساعة ما قارن كرو سركعنا يو فدينا ديني سيدا دنيا قاركين سامي قاعد قالوا انتو بقول كسر مري حكين مين سعود كين سركعنا يو فدينا ديني سيدا دنيا قاركين سامي قاعد قالوا انتو بقول كسر مري حكين مين سعود كين سركعنا يو فدينا ديني حكين مين سعود كين سركعنا يو فدينا ديدني حكين مين سعود كين سركعنا يو فدينا ديدني حكين مين سعود كين سركعنا يو فدينا ديدني sarahaan aa ujeedin iyo nuurkan baxooyo iyo iftiinkan baxooyo maxaa isleedihiin idinkaan ila hadlooyaa tolbeelayay waa moodi sheekada tolhelayay waay tolhelayay meeqaa lagu dhisi karaa 20 iyo 30 camal aa dheesiin mayno bentin 6 sana lagu dhisi 6 sana lagu dhisi 6 sano aa garbaha lisqabsadi 6 sano aa lisku kalsoonaay 6 sano aan isdarajeehay 6 sano aan madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo shacabkiisaba ay dhexda xirteen biyaha hadda jiira walboo gashid jigjiga biyo waaye war haddii jiiraa gelin xataa jidkaa socotaa lugta midig lee dhulka jig ku siiyey tur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 ug markii dheragtid lugta bidaxa jug siiyey haddana waa shuuqa heerkaasaa la gaaray ilaa baadiyo tubooyin geelaa qaweesooya abo geelaa qaweesooya tubadii waxaa loo geliyay shaawarka
haddii dhaho jigjigan ammaana ilaa jimca waa fadhihaa marka intaas aan ugu baxo heer jigjiga waad salaaman tihiin ku dayashaad mudan tihiin i daawadayaal ii jeedayaal ha jigjigan xoogaa ku daahi qodobka lamaad oo qodobka saddexaad hilmaan hadal ma ku jiro qodobka saddexaad waa dhalinyarada xaafadda buulo hoose ee warta nabadda waa dhalinyaro aad iyo aad iskugu duuban ayaga odayaashooda culamaa u diinkooda ardayda shacabka waalidiinta waa warta nabadda xaafad ka mid ee le waaye buulo hooso maasha allah hoose ma tihiin buulo saraa tihiin dhalinyaradii cuslaatay oo hormuudka u yahay diintii leh isdhexgalay sameeyeen jiiraankooda waa ka war khawaan jiiraankooda waa ka war haayaan kii baahan kii jiran kii caafimaad qabo maseeraa idili maseer wallaahi waa warta nabadda degmo ka mid eh waaye waa xaafad ka mid eh ya heer xamar weyne waa u maseeri ninba xaafadiisa inta imaadi qofba xaafadaska imaadi iyagaba dadka waxay casumaayeen alisku daysado nugu daysada qof walba xaafadiisa saan a ka dhigo laakiin ninkii ilaahay fahansiiye le fahmaa ma ahohe haddana ninkii ilaahay fahansiiyo le fahmaa diidiile iyo da'da iyo da'yarta buulo hooso iyo waalidiintooda maasha allah oo diidiile oo horboodaayo haddana waxaan ku soo dhaweynaa aamina macow cabdule aabow aamina macow cabdule ku soo dhawaaw warta nabadda gaar ahaan xaafadda buulo hoos derisaynta iyo deriskaaga waxa ay ku sugan yihiin ama ay cunaan inaad ka warqabto waa ay fiican tahay degmo walba oo gobolka banaadir waa la isla wada degan yahay hase ahaatee xaafad xaafad ayay u kala qaybsamaan degmooyinku sida aad ogtihiinba xaafadda buulo hoose waxa ay ka tirsan tahay degmada Wardhigley waana xaafad u dhow isgoyska Farolasa dhalinyaradii cuslaatay iyo kuwa hadda joogaba ayaa waxa ay sameeyeen isdhexgal bulshadeed iyo isbarasho xaafadda buulo hoose deriska iyo inta isu dhow dhan way iska wada warqabaan maalmaha iida oo farxadda waxa ay sameeyaan isu soo bax ballaaran waliba isu soo baxaas ma ahan kii dadka lagu macaaradayo iyo kan dawladda lagu macaaradayo qof kasta ay ahaataba aan lagu macaaradayn waa isdhexgal bulshadeed midka ciideystay iyo midkaan ciideysan waa ay og yihiin waanay iskaalmeeyaan maasha allah qaar ka mid a dhalinyaradii cuslaatay ayaa meeshaas ka hadleen bal hadalkooda nala fiiriya iyagoo ku hadlaya isdhexgalka bulshada munaasabada ciidda xilliga waxaan soo wadnay muddo sheekh 2 sano 6 sano galaas waxaan u talagalnay dadka meeshaan xaafadaha degan iyo dadka maanta sheekh deegaankan iyo dadka kale oo maanta sheekh xeedan ku cadino inaan isku nimaano farxadaan ku wada ciidno wixii markaas oo maanta sheekh xeedan isku sheegi karno maanta fariid tusaalaan aan siino xafladan waa ciidul fitri culum diinka iyo odayaasha dhalinyarada meeshaas ku nool aad ayay u marxabeeyeen waana ay soo dhaweeyeen dhalinyaro ayaa wadankeeda dhisata wadankeena inuu burburo la socotaan dhalinyarada ayaa wadanka inay dhista laga rabaa dadka baraarujiso wadankooda wadan jacayl iyo wadaniyad ay maaragtay la yimaadaan islaamkana waa ogol yahay inaad meesha aad ku nooshahay ama meesha ilaahay kuma kariyey inaad islaaxiso oo aad wanaajiso taas ilaaha ku mahadsan waa fikir dhalinyarada xaafadda buulo hoose ama degmada Wardhigley xaafadaas buulo hoose sida dadkeeda isugu soo dhawaanayaan haddii xaafadaha kale ay dadkooda isu soo dhaweeyaan ay ismarxabeeyaan waxaa la heli lahay nabad waarta isdhexgal fiican wada joog wanaagsan derisayn wanaagsan ayaa la heli lahaa degmooyinku waa ay leeyihiin xaafad laakiin sida buulo hoose kale haddii ay isu marxabeeyaan ama ay isu soo dhawaadaan waxaa la heli lahay inay degmo walba ay dhisanto oo kiskis ay u wada dhisanto sidii buulo hoose kale in ay ku daydaan ayaan rajaynaynaa deriskaaga waa ilaalo aan lagu dirsan waxaa fiican qofkii deriskaaga ah waxa uu ku nool yahay
iyo waxa uu qabo iyo wuxuu uu cuno inaad ka warqabto ilaahayna saasuu raalli ka yahay is ogaada is marxabeeya derisku isu soo dhowaada aamina macow cabdulle faaliyaha qaranka universal t v muqdisho qodobka afraad munaasabadihii xurriyadda sida 26 juun kooda luulyo ayaa si wanaagsan noogu qabsoomay isbuucan hase ahaatee waa la soo arki jiri kooda luulyo oo loo bannaan baxo ama la xuso 26 juun waa la soo arki jiri laakiin cawadii 26 juun dad badan boorsayaalkood xamar waa xirxirteen balcad aa loo dhawaaday balcad qaxo sababtoo ah dadkii waxaa dhagahooda ka bati madaafiic dadkii waxaa dhagahooda ka bati hoowiye dadkii waxaa dhagahooda ka bati taangi maaldaha uskan weenka weno taangi koo kale oo taangi dhali usna beeba maaldaha taangi lisu ogyahay laakiin unaka ebedkay bulureel ma maqlin buleer maaldaha us ebedkay ma maqlin ani naftirkey waa jiifisin usoo boodi ammaana allah ilmaha kor ii hurdaayeen ilmihii aan kuroor waxaan dhahay sarkoraan deganahay haddana laakiin ijaar waayaa igu soo beerina wallaahi ijaar waaya ani ijaaraan deganaya marti ma xamili kari marka dowladda farmaajo wax badanaa laga barahooyaa maasha allah shameeda waa la deg noogu dambeysay buleer ebedkaayi ma arkin dad badan ebedkood ma arkin marka wax badanaa laga barti wax badanaa laga faa'iiday insha allahu ninkii ilaahay ku gaarsiiyey 26 juun ama kooda luuliyim ama feestayaalka soo socdaan hadda kadib dadku waa la qabsadeen waana aniga waxaan dhihi karaa horumar ay indhaha gaareen waaye horumar ay indhaha gaareen kii horo dhagahana waa xanuunay indhahana waa oynaayeen kan dhagaha ma xanuunaayo indhahana waa farxooyaan oo waxay ujeedaan ya waa xabad oo lasoo dubi oo lasoo shiili basal tuun xawaaji waa lasoo dili ida dhan dad wax ma yeelayso waa daadahe roob camal roob naftirkey maraan shaatiga siibtay waxaan dhahay abo roobkan jaallaha iyo gaduudka iyo cagaarka maku qabaysataa ilaan buleer waayo waa qodobka afraad waxaana inoo haaya mataqaanin waxaanoo hayaa wariyaha la yidhaahdo ilaa fool ku taala daawasho wacan wiigan ama sitimaankan ayaa waxaa si aad iyo aada loogu dabaaldegay iyadoo toddobaadkii xurriyadda ay tahay oo feestooyinkii xaflada la yaab leh oo aad u qurux badan loo sameeyey oo magaalada si aad iyo aada looga shaqeeyey oo haddana maxaa u malaysid meelaha qaar quruxda iyo calamanka lagu dhejiyey iyo nalalkii iyo kasoo bilow xamarweyne isgoos kasta markaa fiirisid waxaa ku dheganay nalal iyo calaman qurux badan degmooyinka oo dhan degmo kasta iyo laami kasta iyo meel kastana la si aada loo qurxiyey oo laga shaqeeyey oo haddana micnaha loo diyaar garoobayey feestada ama xafladaha loo dhigayay 26 juun iyo 1 luulyo iyo 27 juun oo intaba runtii xaflado la yaab leh loo dhigay oo loo soo bandhigay haddana waxaa micnaha aad iyo aad la yaab iyo mucjiso iyo nagu noqotay iyadoo waqti badan wax aan la arkin ama aan la maqal ay kusoo kordheen xafladaha habeenkii dhoweed ee 26 juun loo dabaaldegayey ayaa inta badana waa la samayn jiray dowladihii horeba waa micnaha waa xusi jireen waqtigan oo kale markii la gaaro laakiin waxa hadda ay ku kala duwan yihiin dowladdan iyo dowladihii hore waxay samayn jireen markii la isku yimaado oo calanka la saaro waxaa kasoo qayb geli jiray baambayda muusikada oo marba qole ay tumaysay ama horseed ama heegan ama onkod haddana waxay maqli jireen dhawaqa baambayda muusikadooda oo muusikada calanka astaanta ama heesaha wadaniga oo muusig ahaan loo tumaayo ayay dhawaq ahaan maqli jireen habeen dhoweed oo 26 juun ay ahayd waxay kusoo kordhiyeen madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare kheyre waxay sameeyeen habeen dhoweed markii gobolka calansaarka laga sameynayo 26 juun waxaa la riday xabado buleer
buleerkaas oo ay dadka ku noqotay mucjiso sababtoo ah soomaalida inta badan wax badan ay waxay ku dhex jireen xabad iyo dagaal iyo colaad haddii xabad ay yeertana colaad lay u haystaan wax kaleba farxadaa loo sameynayay loo ridaa buleer marnaba kuma tala jirin dowladii hore muusikaa maqli jirnay laakiin dowladdan buleer ay kusoo kordhisay oo habeenkaas iyo habeenkii ka dambeeyey iyo buleerka si aada loo riday oo cirka oo dhan macnaha uu ka muuqday quruxdiisa iyo kalaro kala duwan iyo maxaa la iftiinkii oo dadka ay arkayeen dadna waa ku cusbay dadna waa yaqaaneen oo waqtigii horena waa la sameyn jiray laakiin caruurtii la dhalay intaas 20 iyo intaasoo sano kadib waay haddana buleerkan yimid waa maxamed weli xaaji axmed universal t v faaliyaha qaranka muqdisho eegayaal waxaa haddana ku soo dhawaatiin qodobka shanaad waa sheekadii la magac baxday kalamaan ilaahow isku maan naga yeel ilaahow meel walbaan joogno ilaahow isku maan naga dhig ilaahow khaluubteena burcad isku mari ilaahow laabteena isku soo dub ilaahow ummadana oo maxamed aan nahay yaa rabbi ilaahow kuwii isku tanasule naga yeel yaa rabbi ilaahow far naga yeel anakana ilaahow soomaaliya sidii hore ilaahow rabbiyo mid qura ka yeel sheekadaasna waxaa mar walba noo jila jiliyaasha ama wariyaasha faaliyaha qaranka haddana anigoo ka xun kalamaannimada jecel iskumaan inaan naqano ku soo dhawaada sheekadii kalamaan وريا إسرائيل والمعارضة هذا اللي مسؤول سومالي معارضة معارضة تاني هذا اللي بكفر وريا يا هذا اللي مسؤول سوكمي مان وريا إسرائيل معارضة صاحب وحاربنا جوك ماشي جوك مصوبه تلفون حامد يب هويدا ربينا وبعد صاحبكيو adoo maxaabiis ma telefoon idii bileed muwaanadaadii hooyadee dadka dhan waa la soo boqona iimaan maxaa hadda la meena adoo maxaabiis see dadkaada waana ii sheeg ma dadka dhan waalidiinta waa soo booqdeen anan hooyadee adi soo lagu soo booqon marka ma iimaan hooyadee inaan u bacdan raxan ma telefoonkeedii ha telefoon inaan maskax aan ka hadmi sheegi kara had waa soo xasoon telefoonka hal mar idib saaxawo nin askari Soomaaliyeed hadda tahay askari Soomaali waa aniga laakiin aniga in maxaabiista aniga asaan u ilaashada ay lagu talgalbaan asan ka sameey hadda ina ay xarta baarta ma wax ma arkays waa ogta meegsana xabsigan ku jira cadaalad daran ku xirnaad cadaalad daran ku xirnaad cadaalad daran ku xirnaad idib saaxiibkeeyo may maqlay saaxiibkee waa ku sameeyna ahsan labarka sheeg laba saddex فرا لوميا هاي أفرشان سديد حل واي سوق بكبي وانا عيا أنا شغال ليه سوق بكبي وقت سوق بركان سوق هلو الله هاي معان إيه ورن ساتهاي هاي إيوار ما في عنده هاي وين عادي هاي هاي مبقى أركض دتكنا مارتي والدين تو دتكوا صوب باقونوين محاكونا محلي وما واي الله هاي معانو مكون عين أنا جسان كونا عويل كي دما بتسا كونا هاي دتك قاركود هاد والدي دتك قاركود والدي دت والدي هاد مانتب
dad badan baa la deeya ah oo adigu ma soo gelin miyaa marka may hooy macaan kama warqabo aniga waxa la deeyay wax kale kama warqabin balse haddaan u kuurgalaho waxaan weydiinayaa dariska iyo dadka meelaha joogaan weydiinaa haddii wax la deedeeya haddii kale marka anaa kugu soo warcelinaa hooy macaan dadka weydiiya dadaa la deeya hadda beridama la sheegay dadaa la deynaa la sheegay hooy arrintaas xoog ii saar haye hooye insha Allah haye wax walba way iska hagaagaan qalbigaaga khayr u sheeg hooyo haye hooye haye ma dhamaysat saaxiibkay qale haye alla wiilkeygii wallaahi inaan nacayo u malaya xagee u nacaama wiilkeygaan nici karaa mase ilmaheygaan nici karaa aniga maba ogeynba in wax la soo deeyay in wax la cafiyey maba ka warqabin ilaah bayba iga tahayba laakiin balse hadda waan weydiinaa dadkaan waraysanaa insha Allah war haye John iyo war see tahay xaalkaa waa fiicanahay alxamdulilah waa fiicanna annagana war haadaniyo waxaan maqlay wiilkeyga hadda isoo wacay wuxuu yiri dadaa la fasaxay oo dadaa cafis loo fidiyey dadaa la fasaxay oo dadaa madaxweynuhu cafis oo u fidiyey ilaan wiilkeyga wuu xiraa waa ogtahay dadaa cafis loo fidiyo saasay wax u jiraan hooyo kama warqabtid miyaa waxyaabahaas oo dhan waxbaa jiray maba maqlin adi ma maqlin war waa dadka halahoo hadda la cafiyey kuwa kalena hadda la sugooyaa maasha Allah dad badan wixii cadaalad darro ku xirnayo dhan dadku waa la cafiyey arfiicana waa cadaalada meesha ka dhalatay maasha Allah alxamdulillah cadaalad ba hadii la helay geedahan cadaalad ay helayaan hawl socoto maasha Allah noo adkay hawshaas oo waxa amnigina waa la sugooyaa hubka dhigisaa jirto wax badan musuqmaasuq wixii dhan waa la diiday maasha Allah adii hawshan waa isku daba dhacday waa socotaa may way fiican tahay waa meeshii loo baahnaa inay ka way fiican tahay Johnow meeshii loo baahnaa inay ka bixiyaan ayay hawshu maraysaa wiilka marka dadka la soo cafiska ma ku jiray may hadda mar uu ila soo hadlay wuxuu yiri hooyo dadkaas ma gelin oo yiri wali leey soo cafin oo yiri mana soo bixin wali marka aniga maba ogeynba maana hadda lagu ii sheegayo ana haddaad ii sheegtaanay hadina ka waraysidaa la rabay marka ina raadisid inta xaalku mara haye ina dhahdo ma dhihin ma ogeyn laakiin hadda insha Allah u tagi doona aduuna cafiska hortay soo gelin waxa waaye hadda alxamdulillah rajada waa fiican tahay asana nasiibkiis wax badan oo meesha ku jiray ilaahay ha ku soo daro dadka la soo deedayna amiin insha Allah amiin ayabo khayr isku ognaay حقي لا يقوعوا الله ويلكيني هاي معان عافماتك الحمد لله ما هاكو رح مصابح ذي الحمد لله حتى انا نصوف الصحي انا قوى بدن ملين صوف صحي الحمد لله الحمد لله فرح سنة المهية ابي محا آوي محا وايه ilmi aawi naagtay ilmaha ay naagtaada hooy macaan way baxeen ma joogaan intee hooy macaan markii adiga aad xabsiga gashay tahriib ay aadeen way baxeen hanixin hooy macaan hooy maxaa u celibaysa tahriibkan hooy macaan oo ma ka celin sababtoo aniga waxaan siiyay mahayo saas darteeda isaga baxeen balse hadda la hadlaaya waa la soo celinaya insha Allah intee waa tahriibkan hadda waxay joogaan Kampala joogaan وعلى سؤالي وعبي ما أنا وعدوني هذا حال ضدي وارول الحمد لله وفرح سنة دتك صباح ما الحمد لله بدن على سودي هاي دت بدن
oo maxaa macnaha yaa idin soo deeyay madaxweynaha asiga naftirkiisa ها الحمد لله هاي واقرت هاي بدالنا ودالنta waa ku jeedaa cadaalada la helay الحمد لله ما شاء الله هاي هاي guri waa dhistabe guri maxaa dhisaa maxaan iska dhaafaa adaaba iga maqnaayeen الحمد لله هاي cadaalad helni meegsana meesha cadaaladana ugu xirnaa بسم الله الرحمن الرحيم شقدي مالمان وحواي وعلي سوحدي يوها الإمام دولدين إلهي هنو توسي وانو وابا نو توستي يا وحواي مركي هوري سعدين ولا سوكعي ولا سكمرقامي هذا ما يالي بس وحدي على السير سوكعواي سيدي حقا هاي لو شقي وايو وحال الديدي مسوق ماسوق نمبر مدحوينه قطر ايه رئيس الوزراء قطر ايه أنا يمدين الحمد لله دولدين سينو هناك سنة الله نو زيادي انت دمان الله نو دمستير سيبا يا سوح كستان قرأيس جيب جري هذا مالي أنا ما شقيت الجاي وكاراري سماراي ما شقيت الجاي وكاراري يا بي خرف وحلفش أنا ما شقيت السلام عليكم صدف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي فديس هاي الحمد لله هاي خير والله معانكو قبتا أنا معانكو قبها aniga inta waxaan u fadhiyaa shacabka Soomaaliyeed danta bulshada u fadhiyaa inkastoo ay agaasimo guud waxaan rabaa nin walba aqoontiisa inaan ku qiimeeyo sababtoo dawlad caadil ah noo dhalatay masuq waa la diiday nin kastaba aqoontiisa lagu qiimeeyna muwaadinimadiisa lagu qiimeeyna waxa kale oo la diiday dad kale oo ajnabi inay wadanka shaqeeyaan mamnuuc waay si fiican macna muwaadinkii oo baayahay aan hadda waxaan ku imaado shaqo doonahay aniga hadda waxaan ku imaado shaqo doonahay waxayna fiis waxayna waa kan intay ku jiraan oo shahaadooyinka ay jiraan waxa dhan waa haystaa la fiiri waa shahaadada fiiri maxaa waay meesha qoriya يقدبي مساسة في وحشني مساسة في وعسكر مركينو رئيس الوزراء مدحوينه وعدين يخرعي يتصي يفيري ولا لا بقى قمام هذا الوجمي بيشان نيكا كونتيس نيكا المواطن تسوح كسيني ولا لو ديروا ميشان تم حواي شهادة أو دكسي دحواي كو انتي ديك تغنى وحواي شهادة دكسيغا السرواي انت دي ووو غير جامعتنا ولتالي يا اخي صدقني مرة رانا وزارة دماء شخصو دولتي يا اخي ووو سوق شهادة دي واكن انت زميلك سو شقيسي وحد من وحد من سؤالك الورصة انترفيو معنا امتحان على الورصة صح انتي شغال تقولي وحالو بقى ولقى اديك معنا حبسي ما صومرتي حبس حد لك صوب حبي ما له حرب ما يغسلنا حرنا حد ما انت مصاب حبي ما انت سي مصاب حبي ماركتين انا شقيت طبعا الله عيدك اسلوبتنا وشقيوي والمسوتوسي شغلك سوق اشياء محمو شقلب تكون شهادوينك صح واي بكنا معها وانين وحتى مواد وحصو برتي اقول الى غير جامعه انكستو حبسي اسو مرتي دب مالو عداله در له حبسي واحد دب ماله عداله در ديت عداله موسو معنا مركي عداله در اسكاغا خيراي عداله در دد لو دخلمان حبسي واغنا وحصو دن dad waxa jiro oo wax oo dhameykar lagu xiri inta sadis ka xirnay dad la hilmaam ya bajiro alxamdulillah adalana no dhan ma suq dhan waa joojiye madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda dhamaantood macal baarlamaankiina sare iyo hoosaba maanta ma xaq waayto ilaahay noo siiyay alxamdulillah inta waa gaarayna waa gaarayna hadda cadaaladii ku soo bixino hadda waa bixaysa sayidida tagay حروم لما كعب سوسان حروم كودي سيدي هيدين برضه مايا معناه وحان كودا حروم وحال الربا فرقنا كسوقادي قفك إن شقال مكلا إن فريس له لواي صح إنه دمبيلي جاي
inuu wadanka qalad ka galay صح macna ani ma ku ogi si fiican laakiin waxda macna saydidu waxay u shaqaysaa ninkii dambiile kii wadanka dhan macna wixii dhan iga hayso macna wax way saydidan xukuumaddu waxay ku ogtahay shaqaale kasta inay faraka soo qaado hadda baasaboor rabta fara laga qaada shaqaale rabta fara laga qaada mar si lagu ogaado macna fiil nin kastaba meeshis lagu qiimeeyo صح dawladeen waxay tiriba macna nin kastaba wixiisa lagu qiimeeyo marka saydi idoo la soo marin shaqaale ma la qoray marka faraka soo qaad saydi waa ii keenaysaa intaada kala okay waay waa maasanta waa kana warqaado xalay ku soo xiray bas alla fariya ku soo xiray waa uu soo siya kadib imaaw afkoona tahay waa ku baahnay baadinta cilmiga aan leedahay waa baahnay ما شاء الله ما شاء الله isla bariyan ku keena diyaar haye sanad raba iya maskiinkan cadaalad dalas ku xiranay يا بايا كوداي مرة كم مقري سوكل يا باي سوكل سوسع ورنا واو حاج محمد أيوب عارف جور جوكاي إيه ورا يا في عندنا الحمد لله هاي خو في عنا الحمد لله محل شقادنا si fiican ay u socotaa sax amnigi waa kaasa waa hawshiis waa la wada aad yaday wada ciidan ba shaqeeyay wax badan oo badan isbedelay wax kalena ku haya hadda horta xafiiska nin waxa iga baxay xabsiga iskaaga xirnaay lacag yar macna ma aqaan oo qof la isku qoomeen macna oo iska xirnaay cadaalad daras inta badan garsoorkina waa loo toosiyo cadaalad garsoorka horta ko la toosiyo garsoorka waxa waxa hadda ugu muhiimsan buu waay cadaalad در وحرنين ولا سودي الحمد لله أو حبسي كجري وحي كلو هاد خلق دن وقرصور كاسي وحي كدم دن ولا مستر ولا إن شاء الله إن شاء الله باش مركو علي نو أركيسي فرحة دون خبني على صاركي بولير كيرا كورمن أو لحي لبعتك انتيها ها إنتي كود لولي وحواي شمال قدام يسرتو أقولا لولي روبا تعال روب وفرحتي جمعة اسكتوسة جمعة روب على صار بولير كالا وروحها غير صوصع غير صوصع هرت انت مجارينو انك بدلنا وجارينا لكن وحان هذا وباهنا حمانته بودتك ولا هرسين جرمو وناقينا هرسين نوايدتك وناقينا دتك هرسين ما فرحنا وحواي وحوالب وناقة كفيعا هذا وناقة نوضن باش وتوصلتها مردو حواي عالم كان خبسينا عبان ما ينفع عنك صوتها يا إلهي الوقت كيف هاي وزارة دك ورانا أنا أوكي هاي وحواي وحنا جماعة لسنا هوش ونوكل صوتها هاي هاد فرصة هلاي فرصة دير waxaan isdahay marka bal waa isku dhowdiin bal siimara isdahay way wixii kala wasaaradda ugu baahaneed cayaalku waa shaqeeyeen warshad waa lagu soo dhameey waa lagu soo diray alaabtiina diyaar ay tahay maanta hor leen muusiiqada tido hoosna wada imid baxoogeeda taas hor u sii qaado hadda warqadiyan ku siiya ma kasti ilma hor u sii mar هذا السي سمي وحاول كرم كان لو شقي والشعب كان دي لو شقي يا أمك الشعب يا سعيد هاي سود موه كان كليه أم إسلام هاي واحدة ما كان فرطاس ما كان قلنا إسلام دذال واحد يعمون الجري واحد إحنا لشقينا إذا ندعم رئيس الوزراء يمدحونا وحدين النجا ما لنا شقيه dadka u shaqeynaa shacabka u shaqeynayeen ma yabdi shacabkana shaqeeyo dawladana shaqeyso waa isku xirmaysaa abnigiyaano imaa nabadiyaano zaaidey ilaahay noo ziyaadiyey waa garsoorka haddana garsoorka ilaahay noo toosi ilaahay noo toosi kana hadda waa bilaad garsoorka noo daran wax galayba oo fasaxay wixii xabsi waa kay cadaalad daro u xiran inta dhimanna إلهي سفيعا إلهي خير أنا وأمان خير أنا غيرك هاي صاحب صوت دموي هاي أنا توقعت الديار يا صاحب ساس سكوكنا يا هاي يا جيال خذبك أما خذبك لحد وورجيت سيدي وحي خورين أو آلابنا وركشات مهني نو آخريو إيه بوجي ولا الكي أبوانكي أبوان مكي حاجي بنادر كسر دواوا كوري بوجي مع سنة عبد المريد اللي راجكس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا كسر دواوا برنامج كورجيس هذا وحيل يدان وكالات وبرتين تي في عالمي يونيفرسال استوديو اسمه على مقدشو داود يا البشي بركيسنت رمضان الكريم
fasax ayaan ku kala maqnayn. mar labaad in aan wada kulanno, saddexaad afraad inaan wada kulanno rabbigii qadiray ayaan ku wada mahadinaynaa. maantana barnaamijka wargeysyada waxaan ku soo qaadanaynaa wargeyska la magac baxay aan isweheshano. daawadayaal, wargeyska aan isweheshano boggiisa maanta wuxuu ku daafuray soomaalida waxay ku mahmahdaa safar aan isku cod ahayn sahaydooda waa kala boob. sidaa darteed waxaynu nahay bulsho muslimiin ah, walaalo ah, laysku yidhaahdo soomaaliya, aan kala dhacaynin, meelna kala aadeynin, aan is hureynin, oo naaneestoodaba la yidhaahdo isma hurto. allah subxaana wa tacaala ayaa naga dhigay. sidaa darteed waxaa lanooga baahan yahay in aan iscafino, in aan caloosha isku furno, in aan alla dartiisa isku saamaxno. sababtoo ah wixii dhacay yaan gadaal loo raacin. waddankan waa nagu filan yahay, waa naga badan yahay dhinac kasta. allah subxaana wa tacaala ayaa milkiyad noo siiyey. cid kale oo aan abaal uga hayno ma jirto. dalkan soomaaliya la yidhaahdo rabbiga ayaa noo qadiray dadkiisii ehelku ahaa inaan ahaano. sidaa darteed waxaa lanooga baahan yahay dhinacyo badan inaan ka fikirno oo aan colaadaha ka heshiino, wada hadalka galno, allah dartiis isku saamaxno. waxyaabo badanaa dhaceen, wixii xun in aan dib loo akrinin. sharafkeenna, qiimaheenna, sumcaddeenna iyo waxaynu ahayn inay soo wada noqdaan. waa ka qayb inagoo wada heshiina, inagoo iswada cafina. waayo rabbi naxariistii janha ka waraabiye abwaankii soomaaliya weynta qaaliga ku ahaa xaaji xuseen aw faarax dubad sugaan uu tiriyey qayb ka mid ah waxay leedahay hadduu kala fogaan dhacay kala dhimasho yay iman. aan ku celiyo, hadduu kala fogaan dhacay kala dhimasho yay iman. xikmadda ku dhex jirta inta caqliga u saaxiibka ah way garteen, wayna garanayaan. inta aan garanna iyaga ayaa garansiin doona hadduu alla idmo. aan isweheshano waxay ka dhigan tahay aan iswalaashano. aan isweheshano waxay ka dhigan tahay aan isqadarino. aan isweheshano waxay ka dhigan tahay yaan kala fogaanin. aan isweheshano waxay ka dhigan tahay yaan kala fuquuqmin. aan isweheshano waxay ka dhigan tahay isku ujeedo aan wada ahaan. dalkeennan allah subxaana wa tacaala uu ina siiyey aan u wada ducayno, ducada joogtayno. waayo ducada allah subxaana wa tacaala addoommada ducaysta ducada badiya allah waa jecel yahay. allah waxba nooma weynin. dalkan barwaaqada badan, khayraadka badan ayuuna siiyey. dadkiisuu naga dhigay. bulsho wada dhalatay muslimiin ah, soomaali laysku yidhaahdo ayuu naga dhigay. innaga waa inaan caqliga ka shaqaynaa. waayo soomaalida waxay ku mahmahdaa ayuu yidhi qoraha maqaalka aan isweheshano raad arooriyaad dib looma raaco. raad arooriyaad dib looma raaco. wixii dhacay waa dhaceen. dhulkeenna aan dhisano, dalkeenna aan dhisano, dadkeenna aan dhisano, iimaanka aan sugano, aan ka baxno tahriib jacaylka, aan ka baxno shisheeye jacaylka. dalkaanaan leenahay, ilaahay noo barwaaqeeyey, waa nugu filan yahay, waa naga badan yahay. allah dartiisa aan isku cafino, calooshana aan isku furno, ducadana aan joogtayno. mar walbaba soomaalida dhexdooda biyo qabow allah ku shubo. soomaalida allah iswaafajiyo. soomaalida ilaahay ha isku cafiyo. waa inaan afka ku haynaa ayuu kusoo gabagabeeyey qoraha maqaalka aan isweheshano bogiisii maanta. iminkana waxaan gelaynaa qaybtii ahayd wax ka baro suugaanta iyo mahmaahooyinka soomaaliyeed.
suugaanta waa deeq aliyo derejo dheeraad ah waxaa duub abwaan xiran karoo curinta deeleyda dadweynaha ku soo jiidan kara alla qofkuu doono digtoonaada soomaaliyeed dalkan axwaashiisa dib inaad u egtaan mar kale danyarta xaalkooda isku daya allah deeq baxshee dejiya laabtiina haleesdila dow maahee midyaha ku celsha daabkooda dib u fura dariiqyadii nabadda gogoshi daaweynta waxaan nahay dadaan kala dhacayn duul walaal ah oo diin iyo caqiidiyo hidaba ku kala duuneyne dulqaad iyo inaad muujisaan debicsanaan waarta isku daya allah deeq baxshee dejiya laabtiina haleesdila dow maahee midyaha ku celsha daabkooda dib u fura dariiqyadii nabadda gogoshi daaweynta dulqaad baa adduun lagu dhaqaa nabadda waa daabo isku duubni baa lagu hodmaa nabadda waa daabo dad iskaashi buu walax ku yahay nabadda waa daabo tanaasulka daw baa lagu furtaa nabadda waa daabo danqashada xalkay qayb ka tahay nabadda waa daabo dagaal iyo colaad joogta baa laga ducaystaaye dalka yaga allow noo xasili daa'im baa tahaye dadka yaga iswaafaji allow daa'im baa tahaye caasimadda inoo deji allow daa'im baa tahaye muqdishow inoo deji allow daa'im baa tahaye xamareey inoo deji allow daa'im baa tahaye tuulooyinka inoo deji allow daa'im baa tahaye xaafadaha inoo deji allow daa'im baa tahaye degmooyinka allow noo xasili daa'im baa tahaye dabka shidan allow naga baktiyi daa'im baa tahaye colaadaha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye dagaalada allow naga korqaad daa'im baa tahaye awaaraha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye cudurrada allow naga dulqaad daa'im baa tahaye mandar khayr allow noogu deeq daa'im baa tahaye nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahaye dembi dhaaf allow noo hibey daa'im baa tahaye saan doonayna noo yeel allow daa'im baa tahaye dalabkeena noo fuli allow daa'im baa tahaye ducadeenna eebow ajiib daa'im baa tahaye aamiin iminkana waxaa la soo gaaray qaybtii ugu dambeysay iyo saddexdii mahmaah daawadayaal mahmaahooyinka way soo noqnoqonayaan ku celcelin badan ayaa dhacaysa taasi oo looga go' leeyahay ubadka soo koraya mahmaahooyinkooda inay xifdiyaan maanta waxaan ka bilaabaynaa nimaan dhul marin dhaaya male nimaan dhul marin dhaaya male ku dhaamin maayo dhagaray karoon tahay dhul iyo sisina isku maqan intaasi ayaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo maanta dhinaca kaamarada iyo farsamada waxaa iiga saaciday cabdiraxmaan arke iyo guuleed cabdisalaad khaarey wargeyska waxaa soo diyaariyey soomariya halkan kasoo jeedinay anigoo ama xaaji banaadir buurfuul banaadir baaba xaaji bacdaal dhuuqso anagoo isku duuban waxaan idinku dhaafaynaa nabadiin nool kulanta amaana allah iyo kulanta dambe oo xiise leh waktigan oo kalena waxaa idin salaama dhammaan wariyayaasha faaliyaha qaranka oo ugu horeen waa abwaan maki xaaji banaadir abwaan maxamed wali xaaji john abti abukar jaajumow habi fوق الهبي خام ورام سنجويل والتراب وفارح علي وهلية أبها آمنة معو عبد الله عبد القادر بوسكا تريبل A he is my friend عبد خاني تريبل A إلهو أفكيك بينك يان هلمامي and كوفي iyo duubaha deeyaha diyaariyaha faaliyaha qaranka waa inanka da'da yar jalaqsane guuleed cabdi salaad khaarey maasha allah iyo anigoo ah buller fiirso oo ka faa'iidayso faaliyaha qaranka farta isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare
faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa midaan wax fogaynin waa midaan wax ficlayn waa falaaqayntii fahankeenna farta ha isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka farta ha isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma forare abwaano aad u fac weyn iyo jilaayaal firfircoon fikir ay isku dareen fiid kastoo sabti ah universal ka fiirso faaliyaha qaranka fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka